kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV ku soo dhawaada warka habeen ee Faafi TV waa 27 bisha 8 sanada 2020 qodobada aan kugu soo gudbin doono oo aad ku daawan doontaan warkeena waxa kamid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukunno adag ku riday masuuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka qayb gashay shir looga hadlayay ka hortagga fatahaadaha maamulka koonfur galbeed oo sheegay inuu isku soo dhiibay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab dad Soomaali ku jiraan oo laga soo badbaadiyay xeebaha wadanka Turkiga aqbaraadka caalamka intiisa kale aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah madaxweynayaasha Turkiga iyo Mareykanka oo ka wada hadlay xiisada u dhaxaysa Turkiga iyo Greega daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhur ee Faafi TV markaanu ku soo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan haddii ay tahay markii kugu horreysay oo aad soo booqatay channelkan subscribe dheh hana ilaawin inaad furato calaamadda gambaleelka si aad ula socoto wax walba aan soo gelina channelkan maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukunno adag ku riday masuuliyiin ka tirsan dowladda maxkamadda gobolka Banaadir ayaa mar kaleeta waxa maanta oo khamiis ay xukunno isugu jiro xarig iyo sidoo kale ganaax lacageed ay ku riday shakhsiyaad u shaqeynaya dowladda federaalka Soomaaliya dadka la xukumay ayaa ahaa masuuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo u xirnaa eedan la xiriira musuqmaasuq iyo sidoo kale xatooyo hanti dadweyne waxaana maxkamadintooda ay soo martay heerar kala duwan waxaana ay kala yihiin agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibraahin waxayna maxkamaddu ku xukuntay 10 sano oo xarig ah iyo sidoo kale ganaax lacageed oo gaaraya $2366 iyo in uu qasnada dowladda ku celiyo lacag gaaraysa $137907 iyo sidoo kale ka reebid xafiis dadweyne milkiilaha shirkadda maamuus iyo sidoo kale madaxa hubinta ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda Cali Sheekhdon Cabdi waxaana lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah iyo sidoo kale ganaax lacageed oo dhan $3549 iyo in uu qasnada dowladda ku celiyo lacag gaaraysa $58505 ganaaxa waxa wehlinayo kareebid xafiis dadweyne Aweys Xasan Cumar xisaabiye ka tirsan waaxda wasaaradda warfaafinta ee lagu xukumay 6 bilood oo xariga iyo sidoo kale ganaax lacageed oo gaarayo $183 qadar Aweys Xasan maamulka shirkadda Al-Habib Business Center waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo in uu bixiyo ganaax lacageed oo dhan $183 waxaana dhammaan masuuliyiintan la xukumay maxkamaddu ay sheegtay inay u furan yihiin raacfaan muddo ku siman 30 maalmood 24 bishan ay ahayd markii maxkamadda gobolka Banaadir ay xukunno isugu jira xabsi iyo ganaax lacageed ay ku riday agaasimayaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaas oo lagu helay falal la xiriira musuqmaasuq maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inuu isku soo dhiibay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab maamulka degmada Qansax Dheere ee gobolka Baaya waxay halkaasi ku soo bandhigeen nin ay sheegeen inuu ka mid ahaa saraakiisha al-shabaab isla markaana uu ciidanka koonfur galbeed isku soo dhiibay ninkan oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Cabdi Xasan ayaa masuuliyiinta maamulka degmada Qansax Dheere waxay sheegeen in uu muddo dhowr sano ah ka tirsanaa al-shabaab isla markaana uu ka howlgalayay tuulooyin hoostaga degmada saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa dhankooda waxay sheegeen in sargaalkaas uu ciidamada isku soo dhiibay kadib markii uu adkeysan waayay dhibaatooyinka shacabka ay ku hayaan al-shabaab sida ay hadalku u dhigeen saraakiishan sargaalkan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed isku soo dhiibay ayaa waxay sheegeen in markuu isku soo dhiibay ciidamadan uu watay qori AK47 iyo sidoo kale bastoolad waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ku wareejin doonaan sargaalkan saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya iyo al-shabaab ayaa siyaabo kala duwan waxa ay u soo bandhigaan saraakiil iyo sidoo kale ciidamo oo midba midka kale sheegayo inuu ka soo goostay dhankiisa iskuna soo dhiibo walow bilihii la soo dhaafay ay arrintaasi hoos u dhacday dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir looga hadlayay ka hortagga fatahaadda shir looga hadlayay ahmiyadda hortabinta beeraha oo ay ka qayb galeen agaasimayaasha beeraha wadamada bariga Afrika ayaa waxa soo qaban qaabiyay hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka ee loo yaqaan FAO oo xarun goboleedkeeda ku leh bariga Afrika waxaana uu ka qabsoomay aaladda loo yaqaan fogaan aragga ee Zoomka waxaana Soomaaliya uga qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo sidoo kale waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya Nuur Yuusuf Nuur qodobada shirkan fogaan aragga lagu qabtay looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa samaynta suuq dalageed u yeesha bariga Afrika samaynta isbedelada cimilada beeraha kaydinta iyo sidoo kale samaynta barta xogaha samaynta ilaha kheyraadka beeraleyda samaynta qaabka dhiirigelinta maalgashiga beeraha dhaqaajinta fikradaha ama hal abuurada qalabka casriga ah ee beeraha kulankan ayaa waxa la isla gartay dhammaan qodobada lagu soo hadal qaaday sidoo kale xoojinta iskaashiga wadamada bariga Afrika dhanka beeraha iyo sidii looga hortagi lahaa si wadajir ah qataraha ku imaan kara beeraha oo ay keenaan cayayaanada
waxaana tusaale ahaan loo soo qaatay ayaxa iyo shimbiraha qaar oo beeraha burburiya. dad ay Soomaali ku jiraan ayaa laga soo badbaadiyay xeebaha waddanka Turkiga. inta la xaqiijiyay 51 ruux oo Soomaali ay qayb ka yihiin ayaa laga soo badbaadiyay dooni ay saarnaayeen xeebaha waddanka Turkiga kadib markii dadkaasi ay jihada ka luntay xilli ay doonayeen inay tahriibaan qaaradda Yurub. dadkan ayaa la xaqiijiyay in 15 ka mid ah ay yihiin Soomaali halka dadka kalena ay u dhasheen dalal kale oo u badan qaaradda Afrika. inkastoo weli si rasmi ah aan loo shaacin dalalka ay ka yimaadeen muhaajiriintaas. dhanka kale 22 magangelyo doon ah ayaa kooxaha badbaadinta xeebaha ee dawladda Turkiga ka soo badbaadiyeen doon caag ah oo ku qalibantay xeebaha waddanka Turkiga. dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale dad Soomaali ay ku jiraan waxa ay dooni kula qalibantay xeebaha dalka Turkiga kuwaas oo ay ka soo gaartay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac halka qaarkoodna loo xiray markii la soo badbaadiyay kadib. daawadayaal wali waxaad daawanaysaan oo la socotaan wararka 24 saac. daawadayaal wali waxaad daawanaysaan oo la socotaan warka Faafi TV. markaana akhbaraadka caalamka. madaxweynayaasha Turkiga iyo Mareykanka ayaa wada hadal la yeeshay. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa taleefanka kaga wada hadlay xiriirka labada dhinac, arrimaha gobolka iyo sidoo kale xiisadda ka taagan badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa Turkiga iyo Greega sida uu sheegay xafiiska madaxweyne Erdogan. xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega ayaa sare u kacday kadib markii xukuumadda Ankara ay markabkeeda sahmiye biyaha lagu muransan yahay ee bariga Mediterranean-ka. tallaabadaas ayaana waxaa xukuumadda Athens ugu yeertay sharci darro inay tahay. labadan waddan oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa si weyn isku mandhaafsan waxayna wada sheegayaan milkiyadda kheyraadka ku jira biyahaas oo uu ka mid yahay gaaska dabiiciga ah iyadoo muranka labada dhinac uu salka ku hayo qalfoof-badeedka oo ay ku firaarsan yihiin jasiiradda Greegu uu leeyahay. daawadayaal intaas waxaa ku dhan warka duur ee Faafi TV. haddii ay taa markii kugu horreyso aadna soo booqatid ha ilaawina subscribe kadibna furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo garaan wax walba oo aan soo gelina janalkan.